haddii aad horeba u maqli jirtay tuugga magaalada waa ninka gadaasheeda ka muuqda ninkan aad u jeediin waa gudoomiyaha caasimada galmudug dhuusamareeb magaciisana waxaa la yidhahdaa geedo qorow baa la yidhahdaa dhibaatada ninkaas uu ku haya dadka uu gudoomiyaha u yahay ee ku nool caasimada galmudug madaxaada wuu diidaya dadka deegaanka oo in aad u tiro badan nala soo xiriiray iyagoo ka cabanaya markaa gudoomiyaha ayaa anigu ka kabayaraan waxaan ka gaabsaday gudoomiyaha dhaliilihiisa inaan soo gudbiyo anigoo ka fiirinaya maamulku inuu maamulkeygii yahay ceebihiisa iyo dadka madaxda ugu sarreeya ceebahoodana banaanka in la keeno qalad u arkaya si maamulada kale oo Soomaaliya ka jira iyo dadka Soomaaliyeedba suurad xun aysan uga qaadan maamulka galmudug iyo caasimada galmudug inta anigoo ka duulaya ayaa waxaan ku tuntay xaquuqdoodii dadka shacabka ee magaalada dhuusamareeb ku nool harba marka maanta laga bilaabo si muuqaalkaygu u gaaro madaxda galmudug iyo madaxda dawladda federaalka dhibaatada ninkan dadka shacabka ee magaalada dhuusamareeb degan uu ku hayo inaanu banaanka soo dhigo waxaan ugu talagalay inaan gudoomiye geedo qorow ka diyaariyo 4 muuqaal maadaama xogta aan ka hayo xog muddo 3 sano la wadaagay ay tahay oo aan hal muuqaal ku soo koobi karin ayna kala duwan yihiin dhibaatada dadku u geysanayo haday noqoto mid qaab qabiila haday noqoto mid musuqmaasuq dhibaatadu aad bay u tira badan tahay si marka xoguhu ay iskaga kaygelin dadka igu xiranay isugu jaha wareerin waxaan ugu talagalay maadaama 4 baarti ay tahay waxa aan ka hayo ninkan in 4 muuqaal oo kala duwan aan ka soo sameeyo gudoomiyuhu dadka uu gudoomiyaha u yahay caasimada degan markii laga soo tago maamulka galmudug sidoo ula dhaqma magaalada dhuusamareeb markii laga tagay in caasimada galmudug tahay laba jufo ayaa u badan labada jufo u badan ayaa gudoomiyuhu jufo kamid yahay caqabada ugu weyn ee maanta taagan waxay tahay marka gudoomiyuhu dadkii inuu kala dhaweysanayo gudoomiyaha u ahay markii laga soo tago galmudugnimo markii laga soo tago qabiil markii laga soo tago jufo hoose markii la isla yimaado dadkii asaga oo ka dhashay ee deegaanka deganay ayuu caqabadii koobaad gudoomiyuhu ku haya in ciidaas ka badan oo tacadiya oo hadaan hadda bilaabo qorraxdu iyo dhacayso oo ay kamid tahay inuu dagaal qabiil ka dhaxuriyo oo ay kamid tahay dagaalada soo laalaabtay inta badan xanan buura ka dhacaya oo ay kamid tahay dhulalka la isku haysta magaalada dhuusamareeb oo intaas oo qof on kow la dhigi karin oo laba la dhigi karin dhibaatada dhulalkaas naftooda ku waayay waxaas oo dhan marka la isku soo ururiyo horta waa ninka ka dambeeya qodobka labaad gudoomiyuhu maadaama gudoomiyaha caasimada uu yahay dad aad u tiro badan oo cabashooyin gudbisanaya ayaa maalin kasta gudoomiyaha inay la kulmaan uga baxa xafiiska uu dhuusamareeb ku leeyahay kaamirooyin oo banaan ku xirto waa mucjisada la yaab kuwa shaqaalaha ee kamid ah ee deegaanka u dhashay oo leeyahay kaas waa qalama waa reebel kaasna waa qalama waa reebel kaas miya reebela kaas wada waa hadda ka jufadiisa kama reebel baha ka meesha maanta qorraxa ugu baqto hadii ilaahay baa maqlaaya waa xogti la isoo gudbiyo saxda mararka qaar waxa dhacda jufada soo ka soo horjeedo siyaasadiisu diidan tahay 4 maalin 5 maalin qofku inta soo laabto soo banaanka fayl ugu jiro inay qorraxda ku dhacdo oo iska laabto soo gudoomiyaha la kulmin asagoo caasimada galmudug hadii backgroundkiisa gadaal loo fiiriyo inuu gudoomiyahaas gudoomiyeeda qorow u yahay oo taariikhdiisa la yaqaan oo nin taariikh wanaagsan deegaanka aan ku lahayn ah oo siyaasadihii markaa jiray yara qaabta darnaa daraadood kursigan ku helay ninkaas oo caasimada galmudug uu si suurad xumaynaya muuqaalka ku xiga waxaan ku diyaari doonaa xaruntii degmada loogu talagalay oo gudoomiyaha lacagteedu cunay injineeradii dhisay markii ay dhiseen oo ay gacanta ka gooyeen xarun aad u qurux badan in gudoomiyaha lacagtiiba laga waayay maamulka galmudugna gudoomiyaha lacagtu way siiyeen waxaas oo dhan asaga isdaba marsaday xaruntii maanta degmada quful baa saaran gudoomiyuhu wuxuu ku dhex shaqeynayaa jingada aad u jeedaan sidaas la eego kale laamiga Gurceel iyo Dhuusamareeb isku xira muddo ka 2 jeer ayaa la dhagax dhigay oo madaxweynaha maamulka galmudug oo dhex dhigay nin budgetka laamiga loogu talagalay in la dhiso ninkan baa loo dhiibaa markii 2 mitir rinji la mariyo ayuu xogaa lacag u qaybiyaa asuura orda iska kala taga uusan hadleen madaxweynaha maamulka galmudug maadaama nin fiicadaada oo yahay dadka meesha Dhuusamareeb ku hayana ninkan uu kamid yahay madaxweynaha afka u xiran laakiin ninkan hamiin kasta inkaar buu ku ridaa wuxuu yiraahdaa ilaahu dhaaf tuuga dad maqashid waa ninka ariga dambeeya waana gudoomiyaha caasimada galmudug ee Dhuusamareeb magaciisana geedo qorow waa la yiraahdaa بارت 1 baa maraya بارت 2 la soco qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed dulminaya si jilicsan in loola hadlo xaq uma laha adiga daawayna waxaan si sharaf iyo karaama kaaga codsanaya adigu inaad isku hiilayso shacabkana aad u hiilisid oo muuqaalka meel fog la gaarsiiyo Soomaalida ha warto ummadda Soomaaliyeedna bagada burcada la isku mariyo dhalinyaradu haday kacaan oo mid walba tuuga aan sidaa u soo fashilno oo naan af jilicsan kula hadlin oo niraahna hebel waa tuug aan dhahno way naga cabsan lahayn aad baa